waftigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa soo kormeeray dambiyood aad u ballaaran oo xukuumadda Somaliland ka wado deegaanka Kulaal oo ka mid ah degmada Fiqi Fuliye ee gobolka Sanaag halkaasi oo ay odayaasha degmada iyo madaxda kala duwan ay ka hadleen isla markaasna ay soo dhaweeyeen waxqabadka ballaaran ee xukuumadda Somaliland ka hirgelisay degmadaasi waxa dhaamka kan wuxuu u baahan yahay wax badan buu u baahan yahay oo dhamaystira waxa weeyaan wuu qodan yahay qiyaastii loogu talagalay 5 mitir weeye dherer sida waxa loogu talagalay in magaaladana biyaha uu geeyo kastooyin laga gacbo xoolahana in dhinacan looga sameeyo arar ay ka cabaan mashruuca kan oo hadda wuxuu socday waxa loogu talagalay markii hore 3 bilood 6 bilood sanad hadda sanad buu marayaa waxaan leenahay horta marka ugu horeysa adduunyada waxqabad baa loo baahan yahay kulli hadalkii la yiraahdo waa waxqabad buu noqonayaa qodobka ugu horeeya waxaan rabnaa horta in loo dhammaystiro dhaamka si dhaqso ana loo dedejiyo ta kaloo aniga ay raacday waxay tahay ciid aad u fara badan baa ka soo baxday ciidda runtii haddii aan loo talin oo aan la hagaajin si kastaba loo gale yana dhibaatadeeda ayay leedahay wasiirka waxaan leenahay wixii hore u fulay mooyaane wixii dambe oo maanta yaala deesu ka daba raaci oo yeynaga habsaamin sababtoo ah laba masalo oo noogu daran waxa weeye dadku wuxuu ku xisaabtamaa xilligu waxa weeye haddii ilaahay keeno biyaguna waxaad moodaa waqtigooda in hadda muddo yar oo ciriiri ay ka hadhay hawsha meesha tala marka la sameeyo daraas ahaan lagu sameeyo waxaad moodaa hawsha ka baaqaga ah balligan iyo xilliga guga biyihiisa la afaalaya inayna isu beegtoomin wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay in daamkani ay qayb weyn ka qayb qaadan doono si dadka deegaamadaasi biyo ku filan ay u heli lahaayeen waa laba waa meeshii ugu horeysay ee Somaliland ee noocan laga fuliyo dhaawan badan baan tagay meelo badan baan tagay waad garan karaysaan isaga iyo Fiqi Fuliye kiisa sidaa daraadeed horta markaa waad qaadeen gacantasi waa leedin celin doona waa loo celin doona injineerku wuxuu igu yiri waxyaalo badan baa ka dhiman wali injineerku wax badan baa ka dhiman buu igu yiri waxaana kulli in la fuliyo waxa ka anigu inta waxaynu ku wada hadalnay waxa kamid ah fence waxa kamid ah dayr inta aan garanayo waxa ka dhiman taangigii biyihii iyo wixii kioskooyinkii baa ka dhiman tuubooyinkii nan lagu xiraa ka dhiman mushamicii iyo halkan lagu buufinayay baa ka dhiman hawlo badan baa dhiman laakiin way iska soo daba dhacayaan haddii mashruucani sidiisa u hergalo waa mashruucii qarnigu noqonaya ee deegaanka mashruuc laga faa'iideysto oo xoolo iyo caws iyo beer iyo cabitaan intaba anfaca buu noqonaya idinku sida aad u maamulin lahaydeen qorshe sii dejiye